xubno ka socday aqalka golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyagoona kulan la qaatay xubnaha ka tirsan aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorame. Kulankani ayaa waxa ujeedadiisu daarneed sidii la iskaga xog wareysan lahaa xaaladihii ugu dambeeyay ee ka jira degmada Boorame. Kulankani markuu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay maayar ku-xigeenka degmada Boorame waxaana uu yiri waxa weey hay'adaha dawliga macnaha wada shaqeyn bay wax ku yihiin marka golaha guurtida aan xagan kala u naqaano golaha asaaska Soomaaliland hawsha ay noogu yimaadeen iyo nimanka guddida noo yimiday waxa la waad ku maadsantiin waxa weey degmadu marka la yiraahdo guud ahaan waxa ugu weyn ay u socdeen waxay ahayd sidii hawlihii u socdaan isbedelkii dhacay saameyn wuxuu yeeshay iyo degmadii siday tahay waxa weeyaan degmada macnaha hawshii aan anagu meesha nimidnay isbedelkeeyga wuxuu dhacay sidii ugu fiicnayd waa laga yaabaa marka hore kursiga in la oo tartanku u jira laakiin waxaan isleeyahay malaha qoladii ugu fiicnayd baa tiino maalintii tartanku dhamaaday baa noogu dambeysay annaga oo waxa laga yaabaa in qoladii xagga kala ahayd noogu orod badan yihiin shaqada markay noqoto ta kale amniga guud ahaan degmadu waa nabad guud ahaan dalku waa nabad markaad eegto sanadka xilligii gugiibaynu ku jiraa ilaahayna waxa jira waxyaabaha qaar waa ayaanka waxa la yiraahdo waxaanad adigu controlling nimcadayna si fiican bay ugu daaday gobolka markaad eegto oo bariyahan dambe abaara iyo waxba ay nahaystay laakiin sanadka waxaad moodaa in xilligaad ku soo beeganteena xilligii gugiyo si fiican oo beeruhu meel fiican marayaan marka guud ahaan waxaan leeyahay degmadu waa nabad dhaqaalaha iyagu inta badan wuxuu ku tiirsan yahay marka laga tago degmadu magaaladu ma aha waa magaaladu waxay ku xidhantahay kuwa kale marka maadaama roobku si fiican u daay dadkaasna iyo degmadu Boorama aad bay dhaqaalaheedu u roon yihiin markaad eegto way iska jiraan sixir bararkan iyo waxaan kale culayska kale ay haysto ku guuda kaas oo cid gaar ah aan macnaha ahayn una baahan haddaan dawlad hoosanahay hadii dawladda xalay hadii golaha guurtida leeyahayba hawsha ugu culus ee dalka inoo taala maanta tahay intii wafdi baan ahayn golaha guurtida ka tirsan oo u soo baxay arrimaha xoogaal noqoshada arrimihii doorashooyinku wixii ka dambeeyay hadii jireen wax yar oo isjiidiyay hadii khilaaf ka soo noqday iyo arrimahaas iyo golayaasha cusub ee deegaanka iyo golaha guurtida si ay isugu xidhmi lahaayeen ee la isaga wareysan lahaa hawlaha shaqo ee qaranka u yaala ayaan u soo kicitinay runtii markaa gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanku si wanaagsan oo caqiibo leh ayuu runtii noogu faahfaahiyay arrimaha golaha deegaanka haday xeer hoosaadkii cusub tahay oo samaysanayaan shaqooyinkii u yaala haday tahay xagga shaqaalaha iyo xagga bilicda magaalada runtii wax badan baan iska wareysanay waana u mahadnaqayaa runtii waxa kale oo soo raaca arrimaha nabadgelyada oo iyagana aan iska wareysanay runtii oo degmada iyo gobolkaba xog badan buu naga siiyay waanu mahadsan yahay anaguna waxay kamid ahayd arrimaha noo nimi xoogaal noqoshadii arrimaha nabadgelyada iyo mas'uuliyadii qaranka aanu haynay runtii oo aanu dadaal ugu jirno wafdigeeyagan ka soo baxay caasimadda Soomaaliland Hargeysa guurtida waxa uu helinayay wafdiye kale iyaguna u baxay gobolka Saaxil oo isla guurtida una runtii markaa inahaasan soo kormeereynay